asalaamu calaykum saaxiibayaal magacaygu waa sayid maanta waxaan idinka sheekayn doonaa qaybtii labaad ee qisadayda fadlan haddii aanad daawan qaybtii hore waxaad ka helaysaa linkiga sare ina marsha kadib markii ay kaamiradii duubtay muuqaalkii kaasoo ahaa in hooyaday aabahay ay soo afduubteen wiil yar anigu aad ayaan u argagaxay waxaa igu soo dhacay fikrado badan waxaan ka fikiray fiidiyowgan ma u dirtaa booliiska balse arrinkaasi waxa uu ahaa mid aan suuragal hayn kaamiradii ayaan qarsaday waxaanan u kacay dhinaca madbaha si aan biyo u soo cabo si kadis ah waxaan arkay maamaday oo iga dambaysa oo ileh sayid maxaad ku samaynaysaa kaamiradan aad gacanta ku hayso iyadoo si xanaaqsan ila hadlaysa waxaan ugu jawaabay waxba hooyo kaamiradii ayayba igala booday balse waxaabay aragtay fiidiyowgii waxa ay tidhi haa waxaad ogaatay sirtayadii sow maaha in badan ayaanu kaa qarinaynay haa aniyo aabbahaa waxaanu nahay dad cunaa maanta laga bilaabana guriga ka bixi maysid oo iskool aadi maysid qolka guriga u dambeeya ayaan kugu xidhi doonaa halkaas ayaad ku ciqaaban tahay si aanad sirteeda u sheegin waxaan ku yidhaahday maya hooyo anigu ma rabo inaan iskuulkayga aan ka joogo anigu waxaan rabaa inaan saaxiibadii la soo ciyaaro waan ku baryayaa hooyo waa ballan cidna uma sheegi doono wixii aan arkay aabbahay ayaa soo kacay oo yidhi soco oo orod toos qolka u tag haddii kale waxaad nagala kulmi doontaa arrin aad ka murugooto haye ayaan ku jawaabay waxaan yimaaday dhinacii qolka anigoo naftayda la sheekaysanaya talow maxaan sameeyaa balse wax xal ah oo gacantayda ku jira ma jiro sidii aan habeenkii oo idil u fikirayay markii dambe hurda ayaa ila tagtay subaxii markii aan soo kacay waxaan maqlay sidii qof albaabka qolkayga qaraacaya oo kale waxaan usoo dhaqaaqay dhinaca albaabka balse markii aan furay cidna ma arag waxaan arkay quraacdaydii oo taala dhulka waa aan yaabay quraacdii ayaan soo dhaafay waxaanan yimaaday dhinaca madbaha hooyaday ayaay aragtay oo igu tidhi maxaa qolka kaa soo saaray miyaanan koodhan ma soo bixi kartid maanta laga bilaabo aniga ma tihid inankaygii qolkaas ayaanad ku xidhan tahay halkaas ayaanan kugu keenayaa wax kastood u baahan tahay aniga noloshaydu waxay u dhexaysay mar aan tv-ga daawado iyo mar aan casharadayda ka dhigto online taas ay hooyaday ag fadhido iyadoo eegaysa waxaan ku hadlayo dabcan si aanan u fashilin sirtii maalmuhu sidaas ay iska ahaayeen wax isbeddelina ma jirin ilaa maalin aan aabbahay ka codsaday inuu ii geeyo beerta aad ayaan u beriyey ugu dambayn waa uu yeelay haa saaxiibayaal waxaad isleedihiin maxaa uu ku falayaa inuu beerta tago balse beertaasi waxay hayd mid aan had iyo jeer aniyo saaxiibaday aadi jirnay oo aan kusoo wada ciyaari jirnay halkaas oo aan waqti aad iyo aad u qurux badan kusoo qaadan jirnay xilliga fasaxyada ee aanay iskuul jirin balse nasiib xumo markii aan beertii tegay cid ka mid a saaxiibadii ma aanan soo arag waxaan guriga soo noqday anigoo niyad jabsan muddo 2 wiig ah kadib aabbahay ayaan ka codsaday inuu beertii igu celiyo waana uu yeelay balse markii aan beertii tagnay markan waxaan arkay saaxiibaday waa ay u soo carareen dhinkayga iyagoo i weydiinaya maxaa ku helay halkeed ku maqnayd muddadan oo dhan maxaad kugu dhacay aabbahay ayaa soo booday oo yidhi ka fogaada hala hadlina isagoo xanaaqsan waa ay yaabeen saaxiibaday aad ayay u fajiceen anigana waxa uu igu yidhi inamari mar dambe ku keeni maayo meeshane isagoo xanaaqsan gurigii ayaanu ku soo noqonnay waxaan sameeyana ma aanan garanayn balse saaxiibayaal waxaan daaqadda ka arkay nin gurigayga hoos taagan oo eegaya albaabkayga isagoo wax buu ku qoraya aniguna waa aan yabanaa in yar kadib waxaan isku diyaariyey sidii aan u seexan lahaa balse waxaa yimaaday aabbahay iyo hooyaday oo kiish sitaa kiish madow oo aanay ka muuqan wax ku jira isla ninkiina meeshii waa uu taagnaa in yar kadib waxaa la qaraacay albaabkii hooyaday ayaa u degdegtay dhinacii albaabkii markii ay furtay waa ay argagaxday waayo waxay aragtay booliskii oo leh waxaanu amar u haysanaa in aanu guriga baadhno gurigii ayaa ay soo galeen waana ay baadheen waxaay arkeen kiishkii madoobaa oo aabbahay qolka hoose ku qariyey balse kiishkii markii la furay wax la yaab leh ayaa ka soo baxay saaxiibayaal waxaa ku jiray lafa bini aadam iyo madax bini aadam hooyada iyo aabbahay waxaa loo qaaday dhinacaya xarunta booliska anigana waa laiga dabageeyey waana la xidhay anigu halkaas waxaan ku arkay saaxiibaday waxa aanan ku yidhi waa aan naxsanaa oo waxaan islaha arki maayeen waraaqadii haa saaxiibayaal waa aad yaabantihiin anigu markii uu aabbahay beerta i geeyey waxa aan sii diyaarsaday waraaqad aan ku qoray dhammaan wixii ila kulmay oo dhan iyo in hooyada iyo aabbahay ay guriga igu xidheen alxamdulilah saaxiibaday way arkeen waraaqadii waxaanay u gudbiyeen dhinaca booliska halkaas oo ay soo direen dad qabtaa anigu hadda waxaan ku noolahay nolol fiican saaxiibada ayaan israacnaa iskuulkan aadnaa waanan wada fasax qaadanaa
maalin maalmaha ka mida markii aan guriga ku soo noqday anigu hadda waxaan la noolahay ayeeyday kadib markii hooyaday iyo aabbahay lagu xukumay muddo 2 sano ah. markaan guriga ku soo noqday ayeeyday waa aan ka waayay dhammaan qolalka guriga ilaa iyo aan soo gaadhay musqusha, balse markii aan halkaas soo gaadhay waxaan arkay arrin aad iyo aad u argagax leh. waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal si aad usoo dhagaysanaysaan qisadayda. dhowaan ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybtii 3aad. la socod wanaagsan. fadlan ha iloobin inaad kanaalka subscribe saarto, muuqaalkana like saarto. mahadsanidin.